maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa lagu haystay sawirro loo ekeysiinaya qaab macmal ah ama kartoon ah oo ay isticmaaleen dadka Soomaalida ah. Facebook oo ah barta ay Soomaalida ugu badan adeegsadaan ayaa lagu dhex arkay sawirradan oo ku baahay. maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa lagu haystay sawirro loo ekeysiinaya qaab macmal ah ama kartoon ah oo ay isticmaaleen dadka Soomaalida ah. Facebook oo ah barta ay Soomaalida ugu badan adeegsadaan ayaa lagu dhex arkay sawirradan oo ku baahay. Farsamaynta iyo naqshadeynta sawirrada lagu bedelayo barnaamij gaar ah oo qofku u ekeysiinayo sida sawir gacmeed oo kale ama hab u dhow. Sawirradan ayaa dadka isticmaala ku bedelanaya sawirka aqoonsiga shakhsiga ah ee lagu talagalay wajhida qof walba. baadhis kadib barnaamijka ugu badan dadka Soomaalida isticmaalaan ayaa ahaa barnaamijka Photolab. Haddaba xagee ayuu ka yimid barnaamijkani? Photolab ayaa caan ka ahaa kaliya baraha bulshada Soomaalida, sidoo kale dhowaan ayay ahayd kolkii dalka Hindiya ugu baahay. Tan iyo markii la baahiyay abkani waxa uu ahaa awood tafatireed oo soo saara sawir cajiib ah, wuxuuna leeyahay qaab farshaxan ah oo ka duwan oo qofku u ekeysiin karta marba midka uu doonaba. markii ugu horeysay barnaamijkan waxaa la xiriiriyay in laga leeyahay dalka Shiinaha, waxaase warkaasi isbedelay baadhis ay sameeyeen warbaahinta dalka Hindiya oo lagu ogaaday in aanu xiriir la lahayn dalka Shiinaha. barnaamijkani wuxuu ka yimid Leonardo Investment Ltd oo ah shirkad fadhigeedu yahay San Francisco, Mareykanka. shirkaddan ayaa ku soo bilowday barnaamijkani taleefanada Android-ka sanadii 2010 iyadoo oo wixii intaa ka dambeeyaba sii horumarinaysay. waxyaabaha aad ka heli karto shirkaddan kolka aad furtaba xogta ka hor imaanaysa waa mid ka mid ah 14 barnaamij oo lagu talagalay moobilada, kaasoo ugu caansanaa barnaamijka Photolab Picture. barnaamijkan ayaa lala degay intaasoo milyan oo jeer kolka laga hadlayo qiimeynta Google. barnaamijyadeena moobilka wuxuu ka mid yahaa oo badanaa ka muuqdaba waa boqolka barnaamij ee ugu sarreeya in ka badan 10 waddan. haddaba su'aasha isweydiinayna waxay tahay qatar ma keeni karaa barnaamijkani? barnaamijyada moobilada lala dego ee lagu hagaajiyo sawirrada ayaa caan baxay sanadihii ugu dambeeyay, waxayna sii noqonayaan xaalad walaac leh oo haysta bulshadaba. sida ay qabaan khubarada ku taxalluula isticmaalada aaladaha, waxaa muhiim ah in la aqriyo siyaasadaha qaaska ah oo aad fahanto sababta aad u codsanayso helitaanka xogta gaarka ah. khubaradu waxay sheegaan in ababkani ay keediyaan sawirrada koobaha xogtaada, maadaama aad u ogolaatay in ay sameeyaan marka aad rakibayso software-ka adigoo aqrinin shuruudaha ay qabaan. si gaar ah kuwan aan la tixraac lahayn ee laga soo dejiyo meelaha aan aaminay ku jirin waa qatar, maadaama xaqiijin aanay inta badan xaqiijin codsiyada amniga sida arrimaha quseeya fayraska. ku dhawaad 2 sano ka hor waxaa baraha bulshada ku baahay barnaamij kale oo sawirrada dadka falaqeeya ku sameeyaan kadibna natiijo qiyaas ah oo qofka soo saaraya oo ku saabsan da'diisa. dad ay ka mid yihiin Soomaalida isticmaala Facebook ayaa ka mid ahaa dadkii ku daatay barnaamijkaasi, kaas oo sidoo kale saadaalin iyo hab nasiiba ku soo saari jiray wax uu qofku la kulmayo sanadaha soo socda sida guurka iyo helitaanka inuu heli doono maal iyo lacag iyo wixii la mid ah. hase yeeshee khubarada ayaa hore uga digay barnaamijyadan qaabkan u shaqeeya oo qatar ku noqon karta xogta khaaska ah ee qofka, maadaama sawiradiisa iyo ciwaankiisaba uu la wadaagayo shirkada kale ee leh barnaamijkani. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.